الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. ولا ليال إلهي بمهله سبحانه وتعالى خطبتني جمعيه هره waxaynu ka hadalay fadaa'isha ay leedahay bishan Shacbaan inuu ku dhex jirno. waxaynu tilmaamnay inay tahay bil Ilaahay subhanahu wa ta'ala acmaasha loo bandhigo. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala dadka acmaasha uu ka aqbalo. waxaynu tilmaamnay inay ka mid tahay dadka acmaashooda aan xagga sare loo qaadin laga aqbalin inay ka mid yihiin laba qof oo qalbiga wax iskugu haya oo ayaga amalkooda dib loo soo celiyo oo la yiraahdo u kaadiya ilaa inta ay ka soo heshiinayaan. arintaasi markay sidaa tahay waxa aynu khudbadeena isku yeera dul taagaynaa waxyaalada markaa la xaadnida iyo fadliga ay leedahay iyo sida markaa waxa weeyaan bulshada muslimiinta looga doonayo iyo dhibaatooyin badan oo waqtigan jira oo shaydaanka iyo dadka markaa waxa weeyaan u shaqeynaya ay doonayaan dadka qulubtooda inay kala dilaan. waxyaalo badan oo dadka qulubtooda kala fogeynayana aad iyo aad loo wadwado waqtiyadan ilaa ay sababo u noqdeen in dadkii isnacaan ay kala fogaadaan, in dhiig badani uu daato, in khasaaro badani uu dhaco. meesha koobaad ee wax ka soo burqadaan ay wax ka xumaadaana walaalayaal waa qulubta. sidaa daraad baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jidhka waxa ku jira waslad haddii ay hagaagto jidhkoo dhamina uu hagaagayo, hadday xumaatana jidhkoo dhami uu xumaanayo oo waa qalbiga. qalbiga inaynu dadaal badan gelino ayaynu u baahannahay. isaga ayaa sareynaya jidhka inta kale, isaga ayaa ka qalbigiisu xun yahay bulshada kalena ku faafinaya. waxay dhaafaysaa qof iyo qoys, waxay gaadhaysaa qabaa'il iyo qaran, bal waxay gaadhaysaa ay saameyn ku yeelanaysaa muslimiinta oo dhan. sidaa daraaddeed walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu ina faray oo aayaadkeenu akhrinaynay lagu soo celcelinaya alla ka cabsiga. alla ka cabsigu waa wixii ilaahayna faray inuu yeelo iyo wixii inoo diiday inuu ka reebtoonaano. waxa la yiraahdaa alla ka cabsigu waxyaaladu keensanayo ee la'aanteed aanay suurto galayn waxa ka mid ah laabxaadnaanta ama waxa loo yaqaan salaamatu sadr. qofka qalbigiisu inuu fayoobaado oo uu ka fayoobaado calool xumo, uu ka fayoobaado xaasidnimo, uu ka fayoobaado isnacayb, uu ka fayoobaado colaadda dadka muslimiinta iyo isnacaybkooda. taabu ilaahay naga doonaya weliba inagu ilaahay ka baqanay inaynu hagaajino. oo rabbi waxa uu leeyahay fattaqullah, ilaahay ka baqa. وأصلحوا ذات بينكم دحدينا هشيسية وهشيس كدلية أيو إن الله ربي سبحانه وتعالى آيات قفك إلا هذا ليس انت كبدنا وإلا هلك وقصر رئيسا أي إلا هذا ليس عد كستو مسؤولية إصلاحة
iyo inuu wax ka qabto oo uu hagaajiyo oo dhiig daadanaya uu joojiyo oo dad isnacab isku soo dhaweeyo kaalin ku yeelan kara ayay aayadani la hadlaysaa fattaqullah wa aslihu dhaata baynikum arintaasina walaalayaal ma suurto galayso haddaan waxyaalada aynu soo sheegnay ee qalbiga bukaysiya laga digtoonaan diintuna aad bay ugu dadaashay say ummadu ummad kaliya oo dul iyo hoos bay iskaga fayo oo ay u noqoto inta lagu dadaalo oo dhexdeeda ay markaa ka buuxo isjacayl iyo isgarabsi iyo wax wada qabsasho iyo isku naseexayn haddii wax la kala tabanayo oo laba qof iyo in ka badan ay wax kala tabanayaan qabaa'il wax kala tabanayaan iyo gobol wax kala tabanayaan intaba waxa lagu dhameyn karaa marka lagu galo quluub fayow iyo aragti fayow iyo ummad markaa waxa weeyaan isku daacada walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ina leeyahay isagoo inala hadlaaya oo hadalkaasi inaga inagu soo socdo ilaahay rumaysan nabi maxamed raacnay sallallahu alayhi wa sallam innamal mu'minuuna ikhwa in kaleba maahe muuminiinta ayuunbaa walaala ah muuminiinta ayuunbaa walaala ah walaaltinimada dhabtii waa ta iimaanku isku keeno ayadaa ka xoog weyn walaaltinimada hooyiya aabay wada dhaleen ay isku keenaan ayadaa ka xoog weyn walaaltinimada abtirsiimadu isku keento ayadaa ka xoog weyn walaaltinimada markaa waxa weeye jidhka iyo qabiilku isku keeno ayadaa walaalayaal ka xoog weyn sidaa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ku soo ururiyay walaaltinimadii taa iimaanka sidaa markay tahay maanta waxa la lulayaa calamo aad moodo inuu dadka qaar u soo dhiibayo ibliisku qabyaalad wadaniyad gobolaysi waxyaalo fara badan ayaa maanta baxaya walaalayaal oo dadka walaalaha lagu kala dilaayo oo waxa weeye shaydaan uu ka shaqaynayo waa taas sababtay maanta dhiigeenni inuu qubanaayo ubadkeenni isku dhimanayaan dad walaalaa oo xidida oo wada dhashay birta ay iska aslayaan awood aynu u yeelan weynay inaynu dhiiggaa qaboojinno bal dadka qaarna ay baansiin ku sii shubayaan meelo ibtilaysan ood moodo shaydaanku inuu ka adeegto oo baraha bulshada la yidhaahdo ayaa xaggan iyo xagga iyo meel kasta iyo dabad iyo gudaba la iskugu marinayaa fariimo ay ka soo baxayaan waxyaalo ummadda dhaawac u geysanaya oo walaaltinimadii kala dilaya oo quluubtii bukaysiinaya oo naxl iyo cudur beeraya ayaa walaalayaal aad u badan waajib bay nagu tahay inaynu waxa weeyaan kaalinteena qof waliba intuu ka qaadan karo aynu qaadano walaalayaal sidaynu geerideena u hubno ayaynu u hubnaa inay wax ka soo dhaco heshiisku dambayn doonto marka la kala daalo maxay noo danay noqon doonto meel wal iyo tuulo kasta iyo magaalo kastana intii ilaahay uu ku beeray unbaa ku noolaan doonta cid laga tirtiri karayaa ma jirto cid laga baabiin karayaana ma jirto kol hadday sidaa tahay walaalayaal heshiis baynu u baahanna in kale intaanay inagaga dhiman maanta dagaalka iyo dhibaatada ka dhacaysa ee dadkii ku dhinteen xurmada dhiigga qofka muslimka waynu garanaynaa hantidii ku burburtay ummadii ay ku qaxeen yani waxa weeyaan maanta dhaxan ay waran yihiin ciidan iyo waxa weeyaan shacabba nabadgelyo darre habeenkii ay ku seexanayaan maxay yahay xal bay nooga baahantay walaalayaal inagoo ilaahay ka baqayna subxaanahu wa tacaala
ولا ليال ولا التنمذ إيمانكو صبابه خلاف كسته أو يماده نوع دونها النقد أيدا كحوجن ولقوا اللوبية سيدا درادت بالنبي عليه الصلاة والسلام وحولنا الله لا تباغضوا هاي سمعين أبو لي رسولك عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا هنا يحاسدنا ومد إلهي وحسيي يا وحوي أبو مد إلهي وحسيي عدنا يعني عدك لك حاسد ولا تدابروا دبرك يسكت شيديننا مركا يسكت صار بحضان دبرك يسكت شيديننا dadka qaar haday islaaxa iyo isku dhaweynta u soo socdaan yaan dhabarka loo jeedin madax dhaqameedku waa inay aqbalaan wax kasta heshiis ku imanayo dawladdu waa inay aqbasho wax kasta heshiis ku imanayo hadii laakiin dhabarka la isku soo jeediyo oo taanigu aan doonayaa hadaan lagu gooynahayn waxay doontaa noqoto walaalayaal xalina ma gaarsiinayso إلى النبي حليه ولا تقاطعوا هيسكويننا وكونوا عباد الله إخوانا الدوم دي إلهي وحن غطان ولا للنقضة دين إلهي كولا لوبي صحابة رضوان الله عليهم تصالي الآدياد قيمة بدن أي نوغتغين سيدا يمدوا سفك ليو نقل لهيد iskugu naxariisan lahayd isku jeclaan lahayd iskugu turi lahayd tusaalayalayna koobi karahayn ayaa taariikhda inoogu qoreen ilaahayna wuxuu ku sheegay dadka muuminiinta ah ee nabi maxamed raacay sifada ay leeyihiin inay tahay muhammadur rasuulullah nabi maxamed waa rasuulkii ilaahay waa ergada ilaahay noo soo diray waa kaynu dariiqiisa ku badbaadaynay وكأننا ودكله هدين مرنا أين الليبانهين وددي سمويانه والذين معه كوا الراعي الرميي كوا أركي كوا أنركبا رحماء بينهم وكوا يسكن حريص بدن بحدوده أشداء على الكفار وكوا قال له كوا رحماء بين دحدودنا يسكن حريص بدن ما أنت وحي تاغنتهي إنك يا مسلمين إنك يا ولالا إنك يا هبل اسكو قرنينا أيها للي هي أرنت الله سعانود بيش عالم كايا وحكا قبان دونتا والله بدينا ولبا ورجينا يا إنا يقول لاسي وحي نقول كرديان ورميش بيل عالم ومباهنا بيل إسلام بيو باهن تهي بيل إيمان بيو باهن تهي بيل إلهي تقام بيو باهن تهي انت اسكران اسكو تناشوشا أيو باهن تهي بيل عالم بالورن ياسا حبرير بالينو صدريا قرم عالم كعقل جيس النقضي إني قالة أما حبر قالة انتو لينو صدر ليناهدو وحويا عقليني وحقردكني وحبا غوي وايي كواباي marka waxweey waxino qaban doona taariikhdana laguma arag dubna u dhici mayso inay maslaxadeen iyo wanaageen ay ka taliyaan inay dabkay nagu sii shidaan mooyaan walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatuhum inagu xalina la gudboon yahay inaga loo baahan yahay inaynu caqligeeno oo waxa weeyaan aynu ummadeena kala badbaadino walaalayaal inka la oran jiray taabiciga Iyaas bin Muawiya la oran jiray ayaa asxaabtii rasuulka isagoo ka hadlayay waxa uu yiri kana afdaluhum indana aslamuhum sadra kana ugu fadli badan dhaxdayada wuxuu ahaa ka ugu badbaadsan tahay laabtiis ee ugu laab wanaagsan وأقلهم غيبة يكوغو يريستا حنتا دادك كالي كاسبا نوغو وناكسنابو إذا أكتا يدون ونغاني كنوغو في عنينو يهي نكالولو رجل سفيان بن دينار أيان نين علماء المسلمين تكمدوا ببشر لولنشري
أي الله لو حد أخبرني عن أعمال من كان قبلنا dadkii hore ee naga horeeyay oo wanaagsan acmaashooda ugu wanaagsana waxiga sheeg wuxuu kaanu yacmaluuna yasiran wa yu'jaruna kathira amal yarna way qaban jireen dadka hore ajar weyna way heli jireen wuxuu limaada maxay sidaas ku dhacday iyaga wax yar qabanaya ajar weyn inay helaan waa arintan u baahanahay wuxuu yiri لسلامة صدوره لا بهود حدنا دحدوداني wax iskugu haynin sida daraadeed ayaa wax weeyaan ajar farabadan ay helayeen waayo qulubta haday xumaato qofka amalkiisi ayaa laga qaadanaya amba ficil baabu raacinayaayo waxa laga yaabaa in baynu qof dilo amba inuu qof daawaco amba inuu hanti ku bixiyo xumaan iyo colaad ayaaba laga yaabaa kol hadii qalbigiisa xumaado walaalayaal laabteena wanaagsanaata jannadaynu ku gaadhaynaa maalinta qiyaamahana waynu ku badbaadaynaa yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin saliim maalinta aanu maal iyo ubatoona waxba tarahayn illa qofka qalbigiisa nabad galay mooyaane maalintaas waa maalin wada sugaysa ilaahay waxaanu weydiisanaynaa qulubteena nabad gashay inaynu ilaahay hortagno waxa kamida inuu kamid yahay laabtaado xaadnaata in waxyaalada jannadaba lagu mutaystaa ay tahay rasuulkeeni alayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada dhex fadhiya ayuu yiri nin ahlul jannah albaabka ka soo gali doona hadda ayuu soo gali doona way u diyaar garoobeen nin soo weysaysto midkan soo weysaysto oo labadiisii kabood halkan soo sudhay oo iska soconaya masaajidkii soo galay oo iska tukaday saxaabadii way wada arkeen maalintii labaad uu ku celiyay nin ahlu jannah soo gali doona albaabka ka soo gali doona way eegeen mise waa isagii haddana maalintii saddexaadna sidii oo kala dhacday nin saxaabada kamid ah hoos ninkii uu tagay soo waxaan doonayaa nin marti aan inaad marti geliso wuxuu doonayaa sirtiisa inuu soo helo gurigiiba uu raacay wuu la degay saddex habeen buu la joogay wuxuu kuur galay amalka uu qabto isagaaba ka badin jiray wuxuu qabanayo oo dheeraadaba uu ka waayay markuu saddexdii maalmood ee martida dhameystay ayuu niyo rasuulkuna jannuu kugu bishaareeyay wax amal oo dheeraad oo kugu arkayana ma jirto maxaa ku qarsoon ee sameeysa سيد واحد أنت عذرك سمي واحد كلام السمايو بحبو يصير صير بالكالي واحد كلام السماي أنت عذرك تبان السماية لكن هبين كي ما كان ساحنا عيو وحن ساحدا أنا وقف مسلمنا قلبي جان وحبو هينين قف مسلمنا أنا قلبي جان وحبو هينين أيان ساحدا وحلوات تات درجة أكو جارسيسي وأنا تاتا عينا كرهين صحابة النبي صلى الله عليه محاد النجا ينام ملاين هبيكي أيام حي كدم بيسمانت هل كي ما أنت مريسي إمساينو كدلي إمساينو كقابناي إمساينو ك وحلقوا سيحنا يا بطيح حميد أو وحويان قلوب تدتك بكيسين يسي أيا لقصي ولا سيحنا يا وحلو بهاي ولا لي القلوب تدينين إلى شنو وحكم ذا وقدمين ولا ليال وحلقوا سلامة صدرك يعني لقوا قاريا نبينا نكضينا صلى الله عليه وسلم ودغن كيسي أين أنغنه وحنكوه لنا كتابك إلهي سبحانه وتعالى عافمات بإلهي كل شيء نوجيسنا أين أقبله أين أخرنا أين فهنه سجى قلبي جينا حاري ودوينيه إلهي ما كل شيء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء بوكسين أيوهي وحلابها كتشرة ما أنت أمد عينك حالة ذو مي قادين هداني كتابك إلهي كفقان هداني كتابك إلهي دبرك اللوت شهدين وحويان وحاين وأركني وحكدرني ما يدعين ولا ليال وقدام بين وحلو باي قفكو إنه إلهي بريه سبحانه وتعالى أو قلبي جيسا
inuu ilaahay u ilaaliyo oo waxa weeyaan uu weydiisto ilaahay quraanku inoogu sheegay dadka dambe dadka ka horeeyay inay u ducaynayaan oo ay oranayaan walladina jaa'u min ba'dihim kuwi dadkii hore ka dambeeyay yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iiman ilaahay wanaga iyo dadkii iimaanka nooga horeeyay u naxariiso oo waxa weey noo dambi dhaaf ayay oranayaan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu ilaahu qulubtayada ha gelinin qilli wa calool xumiyo hasad iyo marka waxa weeyaan ilaahay dadka muuminiinta qulubtayada ha u gelin waatay ku ducaysay saxaabadii nabiga la faray inagana leynooga baahan yahay nabadgeliyada inaynu faafino waa wax laynaga wada doonayo salaanta la yiri faafiya salaanta macnaheedu waa maxay qofka marka ku leeyahay assalaamu alaykum waa nabad baa korkaaga ahaatay weey sida daraadeed baa macnuun noqonaya nabadda haday salaanta tahay iyo haday nabadda guud tahay in laga shaqeeyo oo la faafiyo rasuulkuna wuxuu leeyahay jannada gali maysaan haddaydan ilaahay rumayn ilaahayna ma rumaynaysaan rumayn dhaba ilaa iska jeclaanaysaan ma idin sheega waxa isku jeclaataan salaanta dhexdiina ku faafiya salaanta dhexdiina ku faafiya qofka ka soo horbaxa haddaad garanaysid haddaad garanaynba assalaamu alaykum leh waxa sidoo kale muhiim in laga fogaado malaha xun oo shaydaanku dadka istusaayo reeraha istusaayo qabaa'ilka istusaayo dadka madaxda istusaayo ee waxa weeyaan malaxun qofku cidda kale iyo dhinaca kale uu ka malaysanayo in laga digtoonaado ilaahay baa yiri yaa ayyuhalladina aamanu ijtanibu kathiran min adh-dhann dadkii iimaanka laga yaw ka fogaada wax fara badan oo malaha xun ka fogaada maxaa yeelay inna ba'da dhanni ithm malaha barkii baa dambi noqonaya ilaahay waxaan weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala qulubtaydu inoo hagaajiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa wadakaynu inoo hagaajiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhexdeena in isku keen hagaajiyo thumma sallu wa sallimu man umirtum bi salati wa salamu alayhi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم اصلح اخواننا في مدينه الأصعانود وحواليها يا ارحم الراحمين اللهم ارفع عنهم البلاء والقتال والفتن يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم انك قادر ولا نقدر فاصلح ذات بيننا يا حي يا قيوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.